magacaydu Ibraahim balse saaxiibkay waxay igu aadatay waxaan jiraa 5 sano waxaan ku noolahay tuulo yar mar walba cara ayaan ku bixinaa jubbada tuuladeena waxay leedahay cara badan waxaan jeclahay inaan la ciyaaro walaalkay iyo walaashay waxaan ciyaarnaa ciyaaro badan waxaan leenahay ari badan aniga iyo walaalkay ayaa ari garaacna mar walba waa aqaana arigeena si fiican galab walba waxaan ku keenaa ari waxaanu ku daynaa waxaraha si ay u nuugaan hooyadood waxaan jecelnahay inaan fuulno dudunta marmarka qaarkood aan ka soo badnaa aniga iyo walaalkay hooyadeen ayaan qoryaha la gurnaa maalin walba hooyadeen waxay u baahan tahay qoryo ay noogu kariso casho waa muhiim in aan gacmaha dhaqano mar walba inta cuntada ku cunin karo sidii jeermiska gacmaheena u dilna oonu jirin walaalkay ayaa i saacideeyo inaan gacmaha dhaqdo hooyadeen ayaa i bartay sidaas waxaad maqasheen inuu carrigeenna soo gaaray xanuunka la yidhaahdo coronavirus ma ahan inaynu ka baqno laakiin waxaa jira tillaabooyin muhiim ah oo haddii aan samayno nagu caawin kara inaan caafimaad qabno waxaa wanaagsan inaad joogtid gurigaaga marka aad xanuunsan tahay si aadan u qabatinin fayraskan dadka kale waxaa aad muhiim u ah marka aad qufacaysid ama aad hindhisaysid inaad dabooshid afkaaga waxaana sii wanaagsan inaad ku dabooshid afkaaga meesha uu ka laabmo xusulkaaga haddii aad samayso siyaabahaasaan soo sheegnay waxaad caawinaysaa inaan xanuunkani faafin in badan ugu horrayn waxaa muhiim ah inaad gacmahaaga dhaqdid waa muhiim inaad isticmaasho saabuun waayo saabuuntu waxay gacmahaaga ka dilaysaa bakteeriyada saaran ka hor intaadan cunnada cunin markaad ka soo baxdid suuliga iyo markaad ka timaadid goobaha dadku ku badan yihiin